kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada waraysi gaar ah oo aynu la yeelanayno safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya Maxamed Cali Nuur Americo. safiirka waxaynu ka waraysan doonaa arrimo badan oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya waxaana ugu horeyn doonaa shirka lagu soo gabagabeeyay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. safiir marka hore ku soo dhawow TV-ga caalamiga ee Home Cable TV. waa mahadsantahay xasan adiga iyo Home Cable TV maanta lagu soo boqoteen safarka. adiguna waan ku mahad celinaynaa marka hore waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo shirkii lagu soo gabagabeeyay Brussels ee dalka Belgiumka warmurtiyada ayaa laga soo saaray qarashaad badan ayaa loogu yabaahay dawladda Soomaaliya sideed u aragtaa shirkaas xasan wasaad sheegtay way shalayto shirkaas waxa ka furmay magaalada Brussels ee dalka Belgium halkaasoo shirka ay mataqaana ay wada madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliyeed oo wafdi hogaaminayo ka qayb galeen arintan new deal kana waxay ahayd arin soo socotay muddo dheer oo dawladda federaalka ay aad iyo aad juhdi iyo waqti badan u gelisay barnaamij meesha dawladda ay geysteen wuxuu ahaa barnaamij dawladda federaalka Soomaaliyeed ay kala tashatay maamul goboleedyada iyo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Soomaaliya badankooda kaasoo ku saleysnaa rabitaanka dadka Soomaaliyeed shalay waxa ka soo baxay arkaysa shirkan waxa gudoominayay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliyeed Xasan Sheekh iyo EU-da markii shirka dhamaadana waxa ka soo baxay mataqaana yabo aad u fara badan oo lagu yabohay dadka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed waxaana filaynaa rajeynaa insha Allah taala in uu noqon sidii ku hore kala ahaa wararka ku qoran laakiin kan uu noqon doono mid ay lacagtaas la yabohay la bixiyo dawladdana shalay ee ballan qaaday in ay lacagtaas ku bixi doonto waxyaabaha lagu talagalay ha ahaato dhismaha ha ahaadaan iskuulaadka waxyaabaha dadka u baahan yihiin marka waxaan aaminsanahay inuu ahaa guul noo soo hoytay muxuu kaga duwan yahay marka shirarkii hore ee beesha caalamka ay u qaban jirtay Soomaaliya oo sidaas oo kale waxyaabo badan loogu yaboohi jiray muxuu kaga duwan yahay shirkan waxaan aaminsanahay wuxuu kaga duwan yahay shirkan wafdigii hadda uu hogaaminayo madaxweynaha wafdi aad u balaaran buu ahaa oo ay wafdi kamid ahaayeen mataqaana dad fara badan oo wasiiro iyo mataqaana maamul goboleedyo ay ka tirsan Soomaaliya wuxuu kaga duwan yahay waayii hore waxaan u eedeyn jiray in dawladda ay ahayd dawlad ku meel gaar ah hadda laakiin ta ogtahay dawladdu waa dawlad aan ku meel gaar ahayn oo federaal ah saas awgeed ayaan aaminsanahay inuu wixii kaga duwan yahay dhaqaale badan ayaa lagu yaboohay lacag fara badan ayaa lagu yaboohay hadiiba lacagtaasi dawladdu ay gacanta ku dhigto oo ay hesho ma kula tahay safiir in lacagtaasi meelaha loogu talagalay ay ku bixi doonto dawladda way ballan qaaday madaxweynaha haladiisa ayaa kamid ahaa markaas ku celceliyay in uu ballan qaaday dawladdana ay ballan qaadayso in lacagtaas ay ku bixi doonto waxyaabihii loogu talagalay dabcan wadamada mataqaana lacagtaa bixina ayagana waxa waaye dawladda waxay u ballan qaaday inay arki karaan ama ay ogaan karaan waxay ku baxdo baahi aad bay u badan tahay waxaan rajeynaynaa in mataqaana markaan ay ballamahaas la oofiyo duleerada shirkan maamulada Soomaaliya ka jira oo dhan ma goobjoog ay ka hayeen mise waxaa jira maamulo ka maqan maamulada badankooda way joogeen inta u badan ayaa joogay dawladda Somaliland dabcan ma aysan joogin shirka marka arintaasi saameyn ma ku yeelan kartaa uma filayno saa ogtahay dawladda mataqaana federaalka Soomaaliya iyo maamulka Somaliland hadal baa u socda hadda shirkii ugu dambeeyay loo qabtay Turkiga wax meel fiican buu ku dhamaaday haddana waxaan rajeynayaa in mar dhow uu shir saddexaad ama mid kale uu dhici doono oo aan wada fiirsan doono dad Soomaaliyeed weeye madaxweynaha dawladda federaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markastana uu ka dhawaajiyaa meel kasta uu ugu doodayo mataqaana in wax loo qabto dadka Soomaaliyeed Somaliland oo kamid tahay waddankeena kamid tahay marka waxaan aaminsanahay inaan dhib ka imaanaynin dabcan shirkaana waa aragtay wixii ka soo baxay Somaliland iyagana qaybtooda mataqaana si gaar ah ayaa looga hadlay oo loo siiyay inta aad ka ogtahay waxaa jiray maamul goboleedyo diidan shirkaasi inay uga qayb galaan inay dawladda hoos tagaan maxaa lagu qanciyay marka walaal hadda maamul goboleed diiday wali ma arag oo aan ka ahayn Somaliland dabcan dawladdan hadda waxay dhisan tahay sanad waxayna waxyaabaha ay isku markasta ay ka shaqeyso waxaa kamid ah dib u heshiisiinta la hadalka mataqaana maamulada iyo booqashada gobolada madaxweynaha ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka markasta waxay booqdaan ay tagaan degmooyinka iyo gobolada waddanka kamid ah ayagoo muhiimadda ay tahay inay dadka dhageystaan
rabitaankooda waxay rabaan taas ayaana keenaysa mataqaana dadka inay ay dowladda ka mid noqdaan dowladdana soo dhaweeyaan. waa tahay safiiriintaas haddii aynu kaga gudubno arrimaha ku saabsan shirkaasi lasoo gabagabeeyey oo looga hadlayay arrimaha dalka Soomaaliya waxaad safiir ka tahay dalkani Kenya in badanna waad ahayd dabcan dhawaan waxaa jiray shirar lagu qabanayay magaalada Nairobi oo looga soo horjeedo dowladda oo dowladda kooxa ay ugu magac dartay ama ay mas'uuliyiin ay ugu magac dartay qaswadayaal ay ku qabanayeen maxay ku ogtahay safaaradda Soomaaliya dalkani Kenya shirarkaasi lagu qabanayay Nairobi. walaal aniga waxaan aaminsanahay cidii dowladda ka soo horjeeda ama mucaarid ku ah ama ay wax tabanayaan inay wadanka tagaan wadanka gudihiisa kaga hadlaan waxa ay tabanayaan ka sheegaan in dibadda ama wadanka dibadiisa looga hadlo ama dowladda wax lagu sameeyo waxaan aaminsanahay aan u aqoonsanahay inay yihiin wax qalad. laakiin dhaliilaha loo soo jeedinayo dowladda mararka qaar wax ma ka jiraan tusaale ahaan dowladdu way sanad jirsatay waxaa la leeyahay waxyaabihii laga rabay ama laga sugayay ma aysan qaban. dowladda sanad ayay hadirtaan dhisantaa saa sheegtay haddii jiraan dhaliilo ama wax laga sheegayo waxaa wanaagsan in wadanka gudihiisa looga sheego dowladda loo sheego madaxweynaha ra-iisul wasaaraha mataqaana wasiirada loo sheego laakiin wadan dibadda ah in wax looga sheego anaga ma aaminsanin dhaliilaha la sheegayna dabcan inay sax yihiin anaga uma aqoonsanin dowladda inta karaankeeda ah wax badan bay qabatay ka qabatay mataqaana amniga ka qabatay dib u heshiisiinta kii u dambeeyay waa arkayseen oo mataqaana dowladda ay la heshiisay maamulka Jubba waxaa kaloo jiray in mataqaana hadda barnaamijka u dambeeyay oo dowladda ay ka qabatay waxbarashada oo wasaaradda waxbarashada ay mataqaana ballan qaaday in ilaa iyo 1 milyan arday oo iskuulaad la siin doono waxaas dhan waxa ay leeyihiin wax horumar ah ee dowladda ay qabatay. waa tahay magaalada Mombasa waxaa ku xiran maxaabiis fara badan oo Soomaaliya oo lagu eedeynayo dambiyo kala duwan dabcan waad booqatay iminkana wararka aan helnay waxay sheegayaan inaad u socoto safar aad ku tagi rabto Mombasa ee gobolka xeebta ee dalkani Kenya safaaradaada maadaama safiirkii dalkani Kenya aad tahay maxaad ka qabatay maxaabiistaasi xukuunada kala duwan lagu riday dhibaatooyinka ay ku haystaan xabsiyada magaalada Mombasa maxaad kala socotaa. warunta waaye maxaabiista ku xiran xabsiga la yiraahdo Shimalatewa magaalada Mombasa waxay kor u dhaafeen ilaa 100 anaga ka safaarad ahaan Soomaalida halkan degan ha ahaataa qaxootiga ama ganacsatada ama ardayda ama maxaabiista hadduu qofka Soomaaliya haba anaga ayaa wakiilka ah markastana waan ka warqabnaa hadda gaar ahaan kuwan hadda maxaabiista lagu soo eedeeyay burcadbadeed ilaa 100 kor u dhaafayaan waa la xukumay qaarkood qaar lama xukumin kuwa la xukumay hadda maalin weeytu waxaa sanadka hore lagu xukumay 20 sano qofkiiba safaaradda waan u doodnay in laga yareeyo xabsiga maadaama ay wax badan ku jireen iyagu aan la xukumin bishii hore ay ahayd markii maxkamadda Mombasa ay ka yareysay xabsiga oo 20 sano laga dhigay 5 sano taa hadda uga maharin waxaa kaloo jira codsi kale oo aan dowladda Kenya ka codsanay in dadkaas maxaabiis Soomaalida ah lagu soo wareejiyo ay xabsidooda ku dhameystaan wadanka Soomaaliya marka ay xabsiga dhameystaan may hadda in lagu soo wareejiyo ay Soomaaliya ay mataqaana ku dhameystaan muddadii lagu xukumay ma idin ka ogolaatay marka maxkamadda dowladda Kenya ayaa u qoran wasaaradda arrimaha dibadda Kenya waan ka warsugaynaa waxaan aaminsanahay in nagala aqbali doono hadda insha Allah taala aniga waxay qorshaysan weegan gudihiisa ama weekada insha Allah inaan booqdo aan u tago aan soo wareysto waxa kaloo jiro oo aan waraaq u qornay wadanka jasiiradda Madagascar oo iyagana ilaa iyo 20 meeyo Soomaaliya ku xiran yihiin ayagana arabna insha Allah inaan soo booqano kana codsano sidii kuwan kale in lagu soo wareejiyo wadanka gudihiisa la geeyo insha Allah isla arrimaha dabcan safaaradaadu ay u xil saaran tahay amba waajibka ku ah ayaynu weli ku guda jirnaa waxaa jira qaxooti fara badan oo dalkani Kenya ku nool waxaa jiray qorshe ay waday dowladda Kenya dowladda Soomaaliya iyo hay'adda qaxootiga adduunka ee loo soo gaabiyo UNHCR waxaa lagu balansanaa in shir la qabto bisha August looga hadlayo arrimaha qaxootiga iyo dib u celinta qaxootiga arrimahaas xagee bay ku dambeeyeen runta way anaga ka dowlad ahaan iyo dad Soomaaliyeed ka Soomaali ahaanba anaga dowladda Kenya aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa in dad fara badan oo Soomaaliya oo qaxootiga 600 kun kor u dhaafayo ay ogolaadeen ilaa 20 sano ka badan inay xiriir qaxootiga Dadaab iyo Kakuma ay si kuma gaar u joogaan sharci la siiyay meesha lagu hayo raashinkana ay bixiyaan qaranada midoobay iyo wadamada deeqaha bixiyo dowladda Kenya uga mahadcelinaynaa arrintan aan sheegtay shirkan dhici lahaa August
uu mataqaana ay wada qaban lahaayeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya UNHCR dib ayaa loo dhigay insha Allah tacaala hadda wuxuu dhici doonaa November bilowgeeda sanadkan haduu la yiraahdo waxaan loo hadlayaa waxa weeye dadka qaxootiga oo si voluntary ah raba inay wadanka ugu laabtaan qaramada midoobay sharci baa ka jira oo qof qaxooti ah wadanka ka soo cararay si qasab ah aan lagu celin karin haduu asaga laakiin Kenya waxay sheegtay safir aad mahadsan in culays badan uu ku hayo qaxootigani Kenya waxa sheegay mas'uuliyiinta waliba dhadhaab madaxda ka ee Kenyanka waxay sheegeen culays badan ay ku hayaan qaxootigan faraha badan marka haddana waxaad sheegaysaa in dib loo dhigay horeyna maxkamadda sare ee dalkan Kenya waxay soo saartay amar lagu joojinayo dadkii ku nool magaalooyinka waaweyn in ayagana aan la celin maxaa marka dib u dhacaan uu yahay maadaama uu jiray amar iyo shirar lagu celinayo dadkaas maxkamadda waxay tiri lama celin karo hala celin ma dhihin siyaasiyiin iyo dad kale ayaa dhahay dadka in la celi waaye run waaye dib uu ku jiraa mataqaanaa dadkaas faraha badan oo meesha jooga 20 sano ay ka badan magaalooyinka degan dib ay ku hayaan annaga ka Soomaali ahaanba madaxweynaha iyo dowladda markasto way dhahdaa dadka Soomaalida oo diidaha jira ha soo laabtaan wadankooda ka qayb qaataan dhisidda wadankooda taas macnaheedu ma aha inay hadda soo laabtaan aniga waxaan rabaa dadka marka la celinayo ama laabanayaan in si tartiib ah u laabtaan hadda wadan gudihiisa waxaa joogaan IDPs oo mataqaan dad oo wadan gudihiisa magaalada Muqdisho kale ayay joogaan marabna inaad IDP ka sii badiyo waxaan rabnaa in wadamada deeqaha bixiyo qaranada midoobay wadamada saaxiibaan nahay dadkanahay aan ka wada shaqeyno wada fariiso la sameeyo qorsho dadka ay u laabtaan dadka marka laabanayaan waxaan rabnaa in la siiyo tasciilaad iyo waxyaabo ay mataqaana ay ku laaban karaan laakiin dalkii waanu ka warqabnaa magaalada Muqdisho oo ah meesha dawladdu ay ugu xoog badan tahay waxa daafaheeda jooga qaxooti fara badan oo dhibaatooyin la kulmo oo kufsi la kulmo oo tacadiye kala duwan la kulmo oo maalin walba aynu aragnaa qaxootigan nus milyuunka ah dawladdu ma awoodaa inay geyso Soomaaliya waan ku soo celinayaa dawladda Soomaaliya qaxootiga hadda hala celiyo marnaba ma dhihin dawladda Soomaaliya waxa weeye go'aankeeda in celiska ama laabashada dadka qaxootiga laabanayaan ciddii rabtaa volunteerly inay ku laabato gacan waa laga siinayaa si tartiib ah waxaan rabnaa in dawladdu markay diyaar tahay dadkan iskuulaadkooda guryahooda iyo meel deg lahaayeen iyo waxyaabaha ku nool lahayn loo diyaariyo inay soo laabtaan ayaa dawladda rabtaa saas ayaan rabnaa in insha Allah tacaala marka la isku yimaado November Soomaaliya iyo Kenya iyo qaramada midoobay UNHCR ay uga hadasho si loo sameyn lahaa macnaheedu ma aha berito ama November ayaa kulli celinaya ma aha taasna filmeen aan dhacayso insha Allah laakiin heshiis soo ma jirin wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Kenya kulamo ay la qaadatay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxyaabaha looga hadlayay waxaa kamid ah oo warbaahintu ay qaarkood heleen in hay'adda qaxootiga adduunka ay dadka markii la geeyo Soomaaliya ay ku siiso xuquuqdii ay halkan ku helayeen waxyaabaha halkan ay ku helayeen arintaas ma jirtaa ma jirto shirka waa joogay shirka waxa ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ra'iisul ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Marwo Fawziya iyo dhigeeda Amina ayaa meesha ku shiray iyaga shir guddoon ka ahaa UNHCR way joogeen waxyaabo lagu hadlo waxay ahayd in shir la isugu yimaado laga hadlo arrimaha laga hadlo laakiin wax go'aan oo la gaaray ma lahayn Agosto ay dhacday ahayd dib loo dhigay hadda November ayaa la isku imaan doonaa waxyaabaha anaga dawladda Soomaaliya ay sheegi doonto saan u sheegay waxa kamid ah dadkaas in si tartiib ah u laabtaan in inta laaban ka horna qorsho la sameeyo dawladdana ay u diyaar u noqoto meelihii ay deg lahaayeen iyo waxyaabaha ay lahaayeen loo diyaariyo waa tahay safiir in badan ayaad ahayd dalkan ka ahayd haddaan qaldanayn dawladdii Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariisto madaxweynaha ka waxaad ahayd safiir dawladdii Sheekh Shariif waxa ay safiir labaduba waxay ahaayeen ku meel gaar dawladda iminka jirta ee Xasan Sheekh Maxamuud ee federaalka ah ee ku meel gaarka ka baxdana waxa tahay safiir waxaynu ognahay in isbedel badan oo la sameeyo dhinaca safaaradaha ah oo safiiro la bedelay ee kuwa kalena loo magacaabo adiga waxyaabaha isbedel lagu keeni waayay oo yacni safaaradaada isbedel lagu sameeyay way maxay tahay oo aad sameysay oo lagu daayay ama lagu dhaafay marka aniga shaqaale dawladda ahay shal waa la magacaabay birtu waa la bedeli karaa dadka safiirada ama aan la bedelin kaliya maaha way badan yihiin marka aniga ma garanayo haddii bir la bedelin xasalla haddii aan joogana si aan u shaqeynaa si mataqaana ka sii wanaagsan aan u shaqeynaa ma kula tahay maadaama lagugu tilmaamo shacabku ay kugu tilmaameen inaad tahay safiirka ugu shaqada badan safiirada Soomaaliya u fadhiya wadamada dibadaha
in lagu qiimeeyo shaqadaada iyo fahamka aad u leedahay dalkan Kenya? wallahi waa rajeynaya anigu waxaan aaminsanahay in waajibkayga aan ka soo baxo waajibkayga oo ah in aan ka shaqeeyo sidii labada wadan Soomaaliya iyo Kenya xiriirkooda u wanaagsanaan lahaa tan ka horeysan waxa weeye in dadka Soomaaliyeed oo ku dhaqan wadan Kenya aan markasta ogaado xaalkooda si yihiin gaar ahaan hadda waqtiga Kenya waxa ku nool qaxootiga ugu badan adduunka ee Soomaaliya yaa ku nool inaan ogaado maxaabiiska ogaado hadda aniga wax fiican qabta ama wax aan qabta ma dhahay laakiin waxaan aaminsanahay wixii karaankayga ah inaan qabtay aan qaban doono insha Allah. watahay magaalada Nairobi dabcan xaafadda Islii waa meesha ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ganacsiyo kala duwan ku haystaan guddi ganacsi ayaa jira xiriirka idinka dhaxeeya safaaradda iyo Soomaalidaasi dhinaca ganacsiga iyo nolosha guud. xaafadda Islii runta waaye waa xaafadda ay u badan yihiin Soomaalida halkan ku dhaqan wadan Kenya ama Nairobi aan dhahay anaga xiriir fiican baa naga dhaxeeya waan ka warqabnaa ganacsigooda iyo ardayda iyo meesha degan iyo xataa qaxootiga degan meesha waa is ognahay ayagana ganacsatada gaar ahaanba waxa weeye taageero weyn ayay siiyaan safaaradda waan ugu mahadcelinaynaa. marar aad booqataa jiray xaafadda Islii oo aad dad raashin iyo u qaybisay? waa booqdaa wixii markii aan awoodno waxaan aan raashin ama waxaan siino dadka Soomaaliya halka degan saan ku sheegay ganacsi kaliya ma degano qaxootiga degan gaar ahaan bilaha bisha barkaysan Ramadaan iyo ciidaha wixii aan heli karno waa u qaybinaa waana tagaa oo aniga meesha waa meel ay degan yihiin waa Soomaaliya oo aan shaah ka soo cabaa oo ka soo cuntay xataa dadka u tusno meesha in la tagi karo ay nabad tahay amni tahay. watahay safiir dowladda Soomaaliya way sana tiirsatay dabcan maxaad rajeynaysaa marka oo aad is leedahay isbedelo caynka ayaa imaan kara sanadaha soo socda maadaama waqtiga ay haysato dowladda uu kooban yahay? waxaan aaminsanahay in hadda dowladda sanadkan hadda ay dhisnayd ama ay joogtay waxay qabatay ka badan inay qaban doonto haddana waxyaabo fara badan oo wanaag ah oo mataqaana inay qabatay rajadana ay fiican tahay waxaan aaminsanahay in ay wadanka ay mataqaana nabad iyo amni ka dhalin doonto 2016 ay mataqaana u diyaari doonto wadanka in uu ka dhaco doorashooyin madax bannaan duleeraha. watahay marka waxyaabahaasi oo dhan dowladdu diyaar ma u tahay maadaama caqabado badan ay jiraan oo ka hor imaanaya dowladda arrimo badan mudaharaadyo ay jiraan dadka soo horjeeda kula tahay waxyaabahaasi in dowladdu ay diyaar u tahay? dowlad diyaar bay u tahay dowlad aan lahayn mucaarad mataqaana dowlad waa dowlad mataqaana dictator ah wayna lahaan kartaa wadanka hadirtaan amnigiisa oo soo fiicanaya aniga hadda waxaan booqdaa oo aan bishii mar ama laba jeer tagaa magaalada madaxda Muqdisho waxaan ku arkay dhismo fara badan meesha ka socda dad fara badan oo Soomaali ah oo diaspora ka yimid ayaa hadda wadanka imaanaya oo wadanka qayb ka qaadanaya dhisida wadankooda taas ayaa keenaysa taas maxay ku timid waxyaabaha wanaagga ee dowladda qabatay marka waxaan aaminsanahay waxaan rajeynayaa inay wanaag ka badan iyo nabad iyo basbash wadankii u heli doono insha Allah. haddii aynu kusoo laabano Nairobi iyo safaaradda howlaha ay inta badan qabato waxaa jira Soomaali laga qabto oo lagu eedeeyo sharci darro inay yihiin la xirxiro xabsiyada la geeyo qaarkood lagu eedeynayo inay yihiin burcad dadka dhacda habeenkii oo xabsiyada ay ku jiraan oo qarashaad badan ama lacago badan lagu xukumay ma kala hadashaan dowladda Kenya arrimahaasi? dowladda Kenya waxaa ka horeysa dadka Soomaaliyeed mar badan waa la hadlay haddana waan kaga faa'iideysanayaa wareysigeena waxaa la wadan kasta oo la joogo sharcigiisa in la dhowro in sharci wadankaas uu leeyahay sharcigiisa la dhowro in sharci qofka uu lahaado anaga safaarad ahaana waan gacan ka siinaa sharciga dowladda Kenya ma bixino laakiin meelihii loo aadayay iyo habkii loo helay ayaa u sheegnaa dadka xirxiran runta weeye dad waxaa jira oo lagu xiray sharci la'aan kuwo dambi mataqaana lagu soo ogay meesha sharci baa ka jira wadanka anaga safaaradda markasta uu dad la xiro ama maxkamad la geeyo shaqaalaha safaaradda dad kamid ah aniga aan ku jiro ama inta kale laga shaqeeyo consulka ama shaqaalaha kale ayaa taga oo meesha soo ogaada wax say yihiin dadka haddii aan lahayn avocado ama lawyer lahayn waa u qabanaa maxkamadda marka la keeno qofka waxaa laga difaaco wax lagu soo eedeeyo dad badan jira oo dambiye galay qaar waa la xukumay oo waa la sii daayay qaarna way xiran yihiin waa la xiro waa xukun baa ku dhacay marka saas ayaan sameynaa oo aan u ogaanaa dadkii. laakiin dadkan la xirxirayo ciidamada
Kenya waxay sheegay inay amni darro ka wadaan xaafadda Islii oo kale xagga amniga ma kala hadashaan marka dowladda Kenya waa kala hadalnay xaafadda Islii hadirtaan sidii hore maaha ma dhahay boqolkiiba boqol amniga waa soo fiicnaaday laakiin sidoo kale ka fiican tahay waxyaabaha ka cusub waxay ahayd in askarta meesha ay ku bataan si loo ilaaliyo xaafadaha kale ama meelaha kale business ka socda magaalada Nairobi Westlands ama meelaha kale in amniga xaafadda Islii loo ilaaliyo sababtoo ah ganacsi badan baa ka socda waxaan gacan naga siiyay oo aan ugu mahadcelinay xildhibaanka laga soo doortay Kamakinja Yuusuf Xasan oo asna qayb ka qaatay laakiin dadka la leeyahay amni darro ayaa sameeyeen waa lagu soo eedeeyay maaha in xukun ku dhacay qofka haddii wax lagu soo eedeeyo waxaa la rabaa inuu isdifaaco hadduu dambi galana mataqaanaa waa xukumaya hadduu gelina lama xukumaayo annaga laakiin safaarad ahaan saan kuu sheegay xaafaddaas in ay nabad noqoto maadaama ay ganacsato faradan Soomaali lacag degsadeen waan ka shaqeynaa safaaradda dabcan waxaa jiray guri safaaraddii hore ee Soomaalida ay lahayd oo markii hore nin ganacsada uu haystay oo Hindiya hadii aan qaldanayn gurigaas waxaa jiray inaad dadaal u gashay oo safaaraddu ay dadaal u gashay oo soo celisay iminka guriga lagu jirana waa guri kira ah maxaa ay tahay sababta gurigaasi loo dhisi waayo safaaraddu ay u degweysay runta waa guriga juhdi badan waa gelinay waxaan ugu mahadcelinaynaa ganacsatada Soomaaliya Islii oo qayb ka qaadatay soo celinta gurigaas guriga hadda waxa weeye markii aan ku guuleysanay guriga lama deganeen 18 sano ka badan wuu jaban yahay waa la balliqaystay hadda waxaan sameynaa assessment waa rabnaa insha Allah tacaala in madhow la bilaabo dhismihiisa kadib waa u guurno duleeraad guriga safaaraddii saan kuu sheegay hadda anaga waa sheegtaba guri waxaan ku jirnaa xafiiskan waa kira waaye laakiin gurigii waxaan sameynaa assessment engineer ayaan u dirnay ta arkaysaana waxa weeye waxaa lasoo sameeyay assessment oo ah sidii uu noqon doono guriga safaaradda oo aan rajeynayno insha Allah muddo 6 bilood ah ama ka yar in lagu dhiso kadibna aan u guurno guriga duleeraad marka ma jiraan wax walwala oo aad ka qabtaan in ninkii dib ugu soo laabto ma jirto saa ogtiin sanadka hore ahayd markii aan helnay taata diidkii ama waqadii oo lahaanshaha dhulka oo magaceena safaaradda ay ku qoran tahay marka wuu dacwoon karaa laakiin ma heli karo ma guulaysan karo haddana calanka yar baa ka taagan dhulka haddatan mataqaanaa diplomatic language-ka ama hadalla diplomatic waxa weeye haddii guri oo safaarad leedahay calanka taagan yahay waxa weeye waxaa iskale waddankaas hadda dhulkaas waa waddanka Soomaaliya joogto kala waa marka cid soo gali karta ama wax sameyn karta ama qaadan karta malaha marka hore si qalada lagu iibiyay dowladda Kenya way ogtahay marka ninka Hindiga ana hadda dacwo qabno hadda ku furna dacwo oo ah in uu guriga maadaama uu baabay lacagta lagu dhisay asaga wax ka dhib watahay safir ugu dambeystii maxaad ugu baaqaysaa dadka ka daawanaya shaashada Home Cable TV maadaama aad tahay safirkii Soomaaliya ee dalkani Kenya howlo badanna sida aad sheegtay qabatay kuwa badanna ay ku yaalaan maxaad ugu baaqaysaa dadka Soomaalida waxa ugu baaqi lahaa in laga wada shaqeeyo nabadda waddanka Soomaaliya hadda saan sheegnay waxa waaye diilo iyo hami weyn baa jira in ay ka shaqeeyaan sidii ay dhisida waddankooda uga qayb qaadan lahaayeen dadka diaspora iyagana saas oo kale waxaan ugu baaqi lahaa hadda si waddanka ugu soo hami ugu weyn yahay ay u imaanayaan inay ka badan u yimaadaan qayb weyn ka qaataan dhisida waddankooda Soomaaliya iskale Soomaaliya annaga haddaan gacmaha qabsanin oo aan ka shaqeynin soo celinta amniga iyo nabadda iyo dhisida waddanka cid kale oo gacan siinaysa malaha markii anaga aan heshiino oo aan gacmaha qabsano ayaa dadka kale gacan siinaysa aad baad u mahadsantahay mudane safiir waraysigaada iyo waqtiga aad noo hortay waan ku mahadcelinaynaa daawadayaal inta ayaynu ku soo gabagabaynaynaa waraysigii gaarka ah oo la yeelanaynay safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalkani Kenya mudane Maxamed Cali Nuur America oo ka hadlayay arrimo badan oo ku saabsan safaaradiisa waxyaabaha ay qabato iyo shirkii lagu soo gabagabeeyay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka waraysiga waxa idin qaadayay anigoo ah Xasan Sheekh Cumar dhinaca farsamada iyo kaamirada waa عبد الفتاح محمد علمي sidoo kale عبد العزيز إبراهيم علي tan iyo kulanti dambe waxaan dhamaantan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo